بسم الله الرحمن الرحيم مeel kasta caalamka joogto waa ku salaam zaciim iyo zaciimada salaan kadib waxaan kaaga rajeynayaa cadaalad barwaaqo iyo amni inuu kugu siiyo meel kasta adduunka ka joogto adduunkuna waa intaa oo cibaado lagu darsaday ilaahna wada waafajiyo sida caadada ahayd falanqeynteena maanta waa programka ama barnaamijka laga soo duubay dood furan oo marti ku ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud sida arkay meesha dad waa joogaan waa fadhiyaan sidoo kale waxaa daadihinaya wariye sare rugcadaasiya ma aragtay dhankaasi warbaahintaay nin ku wanaagsan wareysiyada madaxda sidoo kale tana warbaahinta khibrad sare u leh kulamo noocan oo kale daadihin kara BBC-da ka soo shaqeeyay mudan Xaraare waa salaamaya oo hawshan si fiican waa uga soo baxay walow ay ka dhiiqeeyeen sidoo kale madaxweynahana intuu hadli karo waa hadlay hase ahaatee madaxweynaha kuma qanacsaneen oo waa laga dhiiqeeyay maadaama meesha ay yimaadeen dad iska caadi ah oo hobalada waaberi iyo fanaaniinta durdur iyo horseed kuwa kamid ah iyo ciyaalka maqaaxidaha ka shaqeeyay iyo mid saaxiibkiisa wasaaradaha ka shaqeeyay iyo wax dad noocaas la keenay waa heesaya marka tii baan qabaayo dandoonisteedii talaan ka qaadan la taagdareeyay kuwa kale inta ka sabcinay taluu ka qaadu la taagdareeyay dad aanba dowladnimada iyo Soomaaliya waxay tahay u maleynaya madaxtooyada iyo madaxweynaha iyo meelaha laga shaqeeyay waay dadkii waxaan fahmi lahaa aqoonta iyo siyaasadda lahaa ee adduunyada si u kala soconaysa maanta iyo wadanka Soomaaliya wuxuu u baahan madaxweynaha afkiisa wax u baahan in laga soo saaro wax ka maqan in loo tilmaamo u baahan dadkii garaadkaasi aqoontaas lahaa iyo aragtidaas ma imaanin because of meelahan oo kale waxa laga wacaa kuwa dadka dhaqaha laga wacaa dadkaas hadda ku sheegay aqoonta leh shaqooyinkooda iyo noloshooda ay ku maqan yihiin oo dad uma baahna hadaan barnaamijku dood furan uusan ahayn oo dood laq ahayd dadaanan anaga hadda meeshan ku kala saari karin waxay yihiin wajiyadoodana kala ma naqaan hadalkooda isku mid ah su'aalahooda isku mid ah sacabkooda isku mid ah waa tahay madaxweynaha marka kuma qanacsaneen sababtoo ah Xasan Sheekh Maxamuud waa aqoon-yahan siyaasi macallin aftahan qof bin aadan oo Soomaali intuu aftahan yahay waa yahay wax kastana waa ka dabaalan kare laakiin waxa meesha loogu soo ururiyay waxa ka dhigtay barnaamijkiisii meel qof loogu heesaayo barnaamijkan bilaabeena shactiro waxa ama la yaab ah nin su'aal la siiyay meesha ka dareemay stage-ka fadhiyada ah amniga gudaha arrimaha dibadda iyo dagaalka shabaab sida qaab noocaas u kala qaybsanay marka midba arrimaha amnigan jecela la siinaa oo su'aal leh waqtigu dhumi eeg su'aal ku saabsan amniga qof kale ayaan qaadi doonaa halkan jooga oo qaba su'aal amni ama shuruucda ku saabsan wiilkan dhalinyarada mikrofoonka بسم الله الرحمن الرحيم مركب غوريس أدبا وسلام يا مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية مدن حسن الشيخ محمود مدن مدحوينه مقعي واحد يرى بشير إبراهيم آدم وحان كم بذا هادد كي أسوء اللي حسن الشيخ محمود إن دورته دبلو دورته وحان أقول اللي لأنه حقبت كيسا هوري أوسو أرغني لو كنت واني سد حدي أنا حمر جوجنو هيئة يومنتيرا على شقينين هل كان باور عن قادني waxaan ku tagnay lug gudud shabeelle oo ku tagnay idaa afkeeda meel kasta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo amsoona taagnay wadanka amni u ahaa maanta xaalka meeshu marayo waa la ogyahay marka mudan madaxweyne tii ayada camal in dib loo soo celiyo aadan kaaga codsanaynaa waanadii koonfurka bal laga soo doortay oo codka aan weydiisan jirnay waxay noo sheegeen in dib wadanka loo xoreynayo noo sheegi jirtay tiina waa bilaawatay بشير وقربا كونفورت البند اللي قال دونا واي سؤال بدنا ويدينا مركب مدن أدبا كل سلامينا بشير وما سنتهاي عدسي السلام أيو وذي سؤال موذين ويلقف سؤال واقع ذكرى I love it حراري إنا قبير ورباهن صحي ورس سؤاشان سو كاجا هاللي ما هذا أملين إن CBB قف دخاي إنه يهي إن هيساي ووريجي I love it حرف هذا يصدق وحابس because of هذا الهراء قاعد عايز سؤال نين أكفيليسي مركو حاماشة قاعد كان لجوز أروري ماشة هي أذيك على حراري مدحوينها
saddex dhinaca kala tihiin dad baa hawshan wata laakiin madaxweynaha programka waa nigala dheel waa nigala soo ajaray baa aaminsanahay marka ninka dhalinyarada haddaa u laabto waa heesayaano ruuxii bukaan qaba barida usad noqotee boolyowga caashaqa waxaa iga bi'in laa baloogu baaqee bilaanay waraaqaha boqolaal sanoo tegey waa la leesoodhey dhaftaa waa u bishaare xasan waa u bishaare xasan xag wuxuu ku leeyahay لا 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 ما شاء الله بناك عد معانا ولي حسن شيخ محمود ومد الصومالية دلمي كون مجرى عقلية دودا هرديس كان مدحوينه اسك جعل اي قولوين كي دور كمد هاي اولولهيسا دليرada iska rajada fiican waaye laakiin habkam waa iska duleysi qofka asaa is duleysanay garaadkiisa duleynay qofka kaligiis maaha boqolaal qofood oo jaamacad ka soo baxay aqoon-yahano oo nacamleynaya arkay hab fikirkiisa marka aragtay iyo cilmigiisa iyo qofka u nacamleynaya marka aragtay cajiib maxaa dhacay boos inuu igu riixaan rabaa aluuliya waa ummadda dulmiga nafteeda ee ka galaysana waaye waana jahliga taas kow ka ah aaminsanahay madaxweynaha daqiiqadii ummadda Soomaaliyeed ku dhawaad $2,000 ku baxdo si kale hadaa kuugu sheego madaxweynaha inuu soo baxo gurigiisa laga soo qaado oo la keeno meeshan amnigiisa iyo dadka shaqaalaha daba socda iyo hawsha la qabtay iyo wadada loo xiray iyo celiskiisa ku dhawaad $25,000 3 saacadood nooga baxday 2013 wadaynuna iidaali iyo wadadaas dheer lagu tagaya amni aleeda hadana waxa leedahay waxay ka fiicaneed ba haday ka fiicneed aleeda waxa leedahay hadana Amazon joogtay wadadaas nabada lagu maray luga ku tagna walaalow anaga macnaa ani maxaan ka imaaday Chechnya maan ka imaaday mise Kuuriya ka imaanay mise Soomaaliya anaga la soconina aaminsantahay waa ka xumahay marka in madaxweynaha waqtigiisii horta waxaas lagu dhumiyo waa musuqay kamid noqonaysa dah furan bahasha dhahdaan dadkii meeshan ka hadli lahaa cilmiga aqoonta lahaa magaalada ku jira hala keeno riwaayad baa meeshan la dhigayaa marka su'aasha hadda aan soo wada am hadalka ninba oynay oo barooranayo waa amalist qof zab laga celiyo albaabkeeda beriga ciyaal zabta ahayn albaabka markii laga celiyo dagaal iyo fooda sameynay muqt ninkan su'aala laga rabay waa iska oynaya waa heesaya waa calaalaya markii waqti ka dhamaadana waa ooyay fahmaysaa madaxweynaha iyo dadka programka wadan waxa filayaa barnaamijka hadda aan soo wado waxa loogu talagalay in lagu dilo ama looga jawaabo ayadoona su'aalayn si indirect ah maadaama suuqa ay ku jirtay hadaleynta maalmahan ay madaxweynaha in gabadhiisa uu u magacaabay xil arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda la talin iyo wax noocaas iyo wasaaradda iskaashiga caalamiga arrimaha dibadda wax sasamal marka taas lagu dhaqaayaa oo madaxweynaha lagu eedeynayay dhankaas iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan marka aragtideeda marka gabadhiisa madaxweynaha inuu magacaabo qaybta ugu dambayso barnaamijka uga hadlaya laakiin ninkan su'aal in qof kale uu ku weydiin lahay darteed ba asil loo soo hormariyay in su'aashaas qof wataa soo meesha uga soo bixin waa la sii dilay dhac labo madaxweynaha mar hadduu ka hadlo mar labaad si direct qof uu weydiin karo dhac labadaas qorshahaas meesha loo keen aniga aragtideeda ka kamaal ahaan aan aaminsanahay laakiin ninkan odaga rugcada ah aan soo wada ee saxafi qabiir ah oo ilaa xilimaan shad bar shaqeynay saa inuu u hadlo waxa ka keeni karo waa dareemi kartaa bal marka hore hadalkiisa aan ku siiyo heestan ugu horreyn magacayga waa Abuukar Xaaji Gobdoon marka hadda waa kulan dadweynaan ka tirsanahay laakiin professionkayga waa journalism trainer oo saxaafadeedaan ahay wasaaradda warfaafintana waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinteeda fiiri adduun waxaa joognaa dadweynahan ka mid ahay warfaafintana waa ka shaqeeyaa dadweyne ahaan inta ku jooga awliya wuxuu dilayaa narrationka waa heesusa laakiin ninkan waa heesuya anaga waa u jeedna haddana wuxuu rabaa inuu sii dilo inuu heesayo ajiib in aan xuquuqdayda mo helo oo shaqaale rasmi wasaaradda warfaafinta ka tirsan ayaan ahaa xilligii Maxamed Siyaad Barre dhamaadkiisaan kuliyadda saxaafadda ka baxay muddo sanada anagoo shaqaale ayaa dawladda dhacday kadib BBC Media Action kan door mataqaana sano la soo shaqeeyay wasaaradda warfaafinta markaan ku noqdayna
rag saaxiibadayaho oo huwa anaanu madax u ahaa jiray ayaa geeska ii geliyey aniga rag saaxiibaday ah oo xasan sheekh maxamuud ay qaraabad dhow yihiin oo wasaaradda warfaafinta raalli noqo su-aasha u guda oo xuquuqdooda barnaamij caadi oo laisla ogyahay oo dhaqis ah waaye qaabka loo sheegayo xanaaqa fahmaysaa dadka la khaldayaa su-aasha gabadha madaxweynaha in toos loo weydiiyo diidanaha madaxweynaha si firal ay u noqonin uu nuxur dilayaa laakiin uu isjijibinaya uu heesaya amarale uurkaad ku taala amarale elataydi noqotay amarale lala waxan dhaqan ma ah mana looga baahno waqtiyaa igu socdo $50 waa 2 daqiiqo ah hadloosid anaga nooga baxayso shacabka Soomaaliyeed wax muhiim ah rabnaa inaan madaxweynaha waqti ugu lama ama noo nasto oo noo seexda meel message in la geeyo waxaan dadka yaa lagu wadan shaqaalinimo loo diiday nina waa nina waa part time job waxaana loogu diiday xasan sheekh maxamuud dartiis anigana firi asiga in wax loo ogolaado waa fiicnaan laakiin qof muwaadin madaxweynaha dartiisa wax loogu diiday madaxweynaha maxaa ka galay dambiyada qaar ee la dowladeenayo dhaqanka qaar ee la dowladeenayo musuqa ee la dowladeenayo uu qofka markan oo shaqadii lagu hayaa shaqada hadda kor xasan ku celiyay maadaama nin magac leeyahay oo saxaafad dowladda hore ka soo shaqeeyay shaqadaas ku ilaaliyay ilaa hadda bariiskiga ay socdo leeyahay marka wuxuu dulmiga qof kaleeto wax looga soo dulmiyo wuxuu u maleynayaa waxana hadalkan ay ka hor imaanaysaa madaxweynaha aragtidiisa ah haddana mar dambe markuu jawaabayo I'm sorry xasan ay shaqaaliyay habeen aan dood wadaag ku weydiiyey su'aal goobdoon su-aashaada u gudub su-aashayda aan gudbaa madaxweynaha aad kor waa shaqaaleysiiyey sidaan lama heesino adiga ninsaan kuugu heesay maadan aadan shaqo siinin dadka hees le shaqo lagu siiyay dulmiga Soomaalida ee istay waa caloosha ka gaajeysan tahay qofka haduu Soomaali xalan gaajeysan yahayna waa gun qofka meeshu irsaaqad ka helaya haduu arko qof Soomaali waa u dhimanaya adduunka taa way ka duwan tahay adduunka sharaf iyo karaamo dadka fiirinaya iyo wax logic caadi ah akriga uu sheegaya wad korrika shaqaaleysiyo ku dhaw madaxweynaha shaqaaleysiyo khibrada ilaahay u sii iyo xirfad iyo magac madaxweynuhu kaga horeeyay meeshan oo ka soo shaqeeyay yo ka barya laakiin dhaqasaa socoto dhaqasta extra job waa lacag lagu bixiyaa brotherkii adiga alxamdulillah ilaaha mahad leh waxaan hadda joognaa hal sano oo ka baraka badan 3 maalmood ka dhiman 5 sano la soo dhaafo galabta waxaan ka soo baxay wardhiigley eki suuqa xoolaha waxaan soo bajaaj soo qaatay ilaa inta aan ku imid nabadda iyo isdhexmarka iyo ammaanka iyo dadku sida isku rabaan wax la malay karo ma waa la maasanta waa inkastoo ayaamahan kaa walwalaayo walbahaarigu reebtee yaa tan hees maca u raadinaa sug waxaa u raadinaa tan sidii baran yaroo roob bidhawaaga subaxdii barqa kaaga soo kacay burcayo bananhowd boosaasa iyo bari burcayo hargeysiyo xasan baalaysa meel baadlee ku onkoray baryan kala maqnayno waan idin basaase bulshayey ma nabadba beesayey ma nabadba dhaqnaye ma dhaqmaye dhaqmaye ma dhaqmay madaxweynaha waa ka karaamo badan yahay nooca in loo dhaqo baraadarkeyga adina waa ka qiimo weyn tahay qof sidaan wax u dhaqo nin aawijigiisa la ka siinaa la keenaa laakiin annaga waxaan u maleynaa qof dhaqista dadka magaca leh inay dadka dhaqaan waa tahay amniga waa la sugay magaalada Muqdisho laakiin wax saan loo sheegay ma su'aalaan rabnaa madaxweynaha inaan weydiino haddii kale meesha ha imaanin suudkan iska bixi gurigaada joog ilmahaaga hayso brother dadweynaha madaxweynaha weydiinayaan nin odaya oo hadda fadhiyo maqaayad ku taalo xamar su'aal weydiin lahay positionkaas waa ka buuxisa I'm sorry ciao
ukaadiyo wax la malayn kara maaha ciidamo aan wiligay arkin oo nidaamsan oo qofka maskiinta gacanta qabanaya dadka waayeelka mataqan laamiga goysiinaya ardayda baabuurta ka joojinaya ayaa joogta xaraare London xataa ma ka dhacdo dhahay jooji goobtoon dhaqis waa dhaaftay tan labaaji iyo doobi waa dhaaftay tan macnaha inta dhaqo saabe brotherkeyga على حرار برنامج كاغا هلين إيجا جوجي قبضون إن علو ساعتا إيجا دايا الله ما دينو وادقا يا وليه يسوك أدقا يسوك هسا إيدي من وليه وادقا يا وقلن جيابلو قروحي يو إلهبا قدامي خاي إلا ويقرصوني سان مركان ويجي عندها كسيا حسنكا إقاذو والله يا أبوي دقس أو public هواي دقس international level of the United States of America World Congress دقس من لها European دقس من لها مثل Economic Forum دقس لندن حتى waxaan kama dhacaan oo sheegayo ilaah baan kugu dhaariyay aniga su'aal waxa ii ahaan lahayd gabadhii Soomaaliyeed caruurta Soomaaliyeed oo la kufsaday ma la weydiinayo caruurtii ku dhimatay daadad kale ma weydiinayo wiili gabar oo macallin dugsi kufsaday su'aasheeda ma la weydiinayo saana loo dhaqaa madaxda xogaa aan xishoodan dareemi lahaa ana wax waa dhaqaa boogta laakiin xogaa xishoodan dareemaano qaab logiga oo formal kala laga soo geliya iimaal ay ku munaasabta email ay ka munaasab laakiin san shameful waay dad waaweyn aan nahay dad aqal aan nahay dawladnimo rabnaa sidaan qurux badna walaalayaal waa idin baryaaya sidaan ma qurux badna naftiina karaameeya madaxweynaha xataa karaameeya su'aala ka soo al xaraar maxaa xaraar waa yaabaya dhigiis iga dhaaf oo leeyahay dhaqistis international level halkan jooga dambeynta waa ogeyn aad oo maasan سؤاشيدي ولا له سؤاشيدي iga fadhiiso iga fadhiis ilaa madaxweynaha oo kala hadlo fadhiisanaay iska dhib fadlan qaado talada su'aasheedii ahayd madaxweyne soo dhawow waa laga qabaa macnaha qaado leeyahay madaxweynaha dhaqistan waa ka qabaa adduunko dhan tan ka eegan jiraaye wayga ambato eedaar jacayl afku hadalka diid haddii madu dhaqaaq inta waan gabo waan ololayoon urkaygu keed ilmadayda timeed waxay aragtay xasano islaankoo dhan ilaa yaab ama kaagayo urugadan qabanaa waa udun jecel wallahi madaxweynaha qoslaa ku dhahay heesta markii loo qaadano bismillah internationale di labacho ay dhihi lahaayeen haddii af carabi aan ku sheegane العملة الضخمة المغزلة القبضونية المغزلة العليا المغزلة العليا الحاجي قبضونية لحسن شيخية نقصتان قبضون ماشي وين حرونتا waxa lagu dhaqay xaaji goobdoon ee lagu dhaqay xasan shiiq waa dadka carabiga fahmaya xashiiqa qoslo wallahi billahi ilaa ceeb astur adduunya joognaay waa tahay aan hore u soconaynaa madaxweynaha gabadha yar was dhaafinaya jawaabteeda asaa lagu dheeraanaya marka waa mahadsan tahay goobdoon waa mahadsan tahay adiga basma baba degmooyin ciidanku inta qabteen ay suura kaca uga soo baxeen ma jirto laakiin degmooyin sidaa darteed laga hadlayay ciidanku intay qabteen boras cadowga uga yimid awgi ay dib u gurasho xeel dagaal ka sameeyeen waa jirtaa goobdoon waa mahadsan tahay
madaxweynaha iyo barnaamijka saadaha kuusha dhaqis inay tahay xog fahmay gabadh inta loogu jawaabay oo su-aasha weydiisay iyo goobdoon oo wax dhaqaayay waxaa sheeko badan uu gelinaya madaxweynaha dhaqista waana meesha su-aasha gabadhiisa ee lagu eedeynayo ama dadku ay ka sheekeynayaan walow aysan eed ahayn oo uga jawaabayo marka waxay ahayd narration ama waxay ahayd conjunction la abuuray oo filim yar oo barnaamijkan asaas u ah in la qabto waaye walow madaxweynaha ay gabadhiisa ay xaq u leeyihiin qayb danbaan uga hadli doonaa markuu hadalkiisa dhameysto faalada sheeg hal problem oo dadka Soomaaliyeed dhaqanka dawladnimada xoogaa waa naga qaloocan yahayo waayaan daba toosin oo kusoo wadna waana socona meel qurxanaan hadda maraynaayo aad loogu faano laakiin waxa kamid ah madaxda qoyskeeda iyo qaraabadeedu waxaad u maraysaa ninkii madax noqday qoyskiisa iyo qaraabadiisa inay xuquuqdii muwaadinimo inay beerdareeyeen صح madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirka ugu sii wada xildhibaanka waxaa la leeyahay walaalkiisa xagga tagay in adeerkiisa xagga joogo nin baa xagga sheeganayo marmarka qaarkoodna waaba lagu colaadiyaa sida hadda goobdoon uu sheegayo xuquuqdii aaba looga joojinayaaba in uu nin madaxa qaraabo la yahay wiilkan ama gabadhan absolutely madaxweyne xasan sheekh maxamuud aqoon-yahan dhisan madaxweyne aftahan afmaal si xigmadeysan wax kasta aa la timaadane sidoo uga dabaasho yaqaan taa micnaheedu waxaa waaye marka aqoon leedahay garaadkaagan oo koro mar walbaay dhinacay wax kaaga imaadaan kubadda dhinaca u bixinaysid waa abuuri karaysaa laakiin marka ku fiirino nidaamka muwaadininnimada dowliga ah madaxweynaha gabadhiisa xil inuu u magacaabo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 5 cid ka mamnuucayso malaha xaq ay u leedahay walowba ay nolol fiican ku jirto oo madaxweynaha uu dhalay oo aysan dhibaato qabin intii ay hab musuq kula socon lahayd hadduu soo wada uu dhahay shaqadeeda u baahanahay oo ay shaqaynayso oo annaga noo shaqaynayso anigu itsame iyada iyo gabar kale horta waa ii siman yihiin teeda kaleetane caqli ma aha madaxweynaha dhalay out of the stage dadka hala geeyo marka horeba reerkan ama iska lahaa kursigan ama dad geysan jiray haddana gabadhiisoo keensaday meel ay diinta iyo sharciga dowliga ku diidayso horta ma jiro dad badan oo ka doodaya waa arkay xaqa uu leeyahay laba siyaabood qofka asaa la doortay waa muwaadinad xaq u leh meel kasta inay ka shaqeyso isagana isagaa la doortay qofka la shaqeynaya asaa dooranayo dastuurkan waa u dhigayaa ma u diiday taas marka hadal uma baxna maxaa lahay meesha marka fariin yara waxaan ka gelinayaa hadda koor xasan cali kheyre oo qolo badan ee amaanaysa arkay oo dhahay aniga beeshayda waa ka ilaaliya xafiisyada sare ee dowladda xafiisyada sare ee san dad badan oo waaweyn oo garaadda oo oynaya arkino muwaadin waaye khabyaaladiista ma aha xuquuqdi beel dhan oo murusado oo ku tuntay muwaadiniin dhan oo ku tuntay weliba si publiga u sheegay xuquuqdooda inuu dulmiyey aqoon lahayn waxba lahayn xaq u lahayn meelaha ay ka shaqeeyaan oo si public u sheegay xasan cali kheyre ra'iisul wasaarihii hore ee dalkeena Soomaaliya waxyaabo badan oo ku fiicnaa waa jira laakiin kaas dadoo ku maanxaday sheekooyinka caadiga oo loo soo abuuro madaxda oo dadka ku dhaca ama ku maskaxada la dhahay iska aheed laakiin dambi weyn aheyd laakiin dad badan murasadaha inay ka hadlaan aheyd kama hadlin ani marka aragtideeda waxaan fiirinayaa aragtida xasan sheekh maxamuud oo qabo waa taageersanahay waana aaminsanahay sidoo kale waxaa jirto wasiirka arrimaha gudaha marna abtigay kheyr alaasiye xasan macalin isna maalin dhaxdaasoo meel public ka hadlayay wuxuu leeyahay anigu ma aaminsani dad beesha in meel lagu riixo anigu ma aaminsani qadaabka dawliga ba beeshiisi iyo dadkiisi wax aqoon leh oo wasaaradiisa agaasimo ka noqon kara maba jiro uu leeyahay isagana warkiisa markan international translation of the 21 century markan geliyo saas waaye laakiin xasan sheekh wuxuu leeyahay oo hadalkiisa ku jirto qofka u baahan tahay inuu kula shaqeyn karo ka shaqeyn karo dalkan saar positionka ha shaqeeyo dadka u baahan uu leeyahay laakiin anaga wali waxaan soo maray xasan stagekan waa ka gudbay international president of the
والله حشيخ هاوي مبان madaxweynaha haawi baan waa isbixin karaa marka sometimes marka inaa dadka iska gadid ma aha waxa loojiga oo ugu dambeynta xasiiq wuxuu ka hadlay in gabadhiisa ay meesha ka shaqeyso xaqna u leedahay oo meesha ku sheegay laakiin waa xaq u leedahay gabar walaasheen oo Soomaaliyeed waayo aqoon leh wax hadal mu baana taas ninkii dhaho yaa la geynaa marka adigu walaasha ma la geynaa mise walaalka la geynaa maya qofka asi u kalsoon geynaa madaxweynaha hadda qisada ama sheekada laga sheekeeyaa wiilkiisii hore ee gabadhiisii qabay baan ku aaminay arrimihiisii hoose iyo madaxtooyada waxa la yiri waa la boodo Buffalo inta tago gudoomiye maaragtay gobolka Banaadir oo 17 bar oo hayo ku soo bedeshtay la yiri buwaagtii siyaasadda Xasan Sheekh Maxamuud inta soo aruuriyo qaado Buffalo geey Faad Yaasiin iyo farmaajo qadar wuxuu ku akhriyeen magaalada Doha wararka suuqan ku sheegaya dan Xasan Sheekh Maxamuud waa loo yimaaday 7 beri miya mise 10 beri xamar joog oo hotel ah soo bixin oo qorax ah arkin oo maxaa Cabdullaahi Farmaajo la haya inta imaaday oo sirtiisi wixiisa dhan soo conclusion gareeyay oo ku soo dagaalgalay kursiga ka eriyaday Xasan Sheekh maanta inuu is aruuriyo oo gabadhiisana midna cuntada u kariso midna buug ay u hayso kursigiisas inuu ilaashto dalkaana inuu wanaag ku wado waa waxa loojiga caadiga oo loo baahan yahay because of adoo inta dhisaya hadii inta lagaaga maqan yahay wareerkeeda leedahay aniga aragtidaasan qaba qof kasta sameey dunida oo dhan sameeyso laakiin ma dhahaayide dadka ha ka xaq badnaato ha ka lacag badnaato ha ka awood badnaato ha ku dheesho waxay doontaa ma dhahaayo laakiin inay shaqeyso total I agree with him wasiirkayga iyo ra'iisul wasaarahayga hore labadoodan waxa leeyahay magdhow ma nasiinaysaa murusada beesa lama gaartaan hadda ka hor aaraada suuqa la soo gasheen waxa naqdiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya bas wasiirka hadda anaga waa nasiinaya meelaha agaasinka aan ku tabeeyay iyo maaragtay xilalka wasaaradiisa ka rabno wasiir Xasan Macalin waa nasiin doona weydiinaya Xasan Alqeero hada soo laabatane muhiimaha gabdhiina kula dhashteen laba tolka ah iyo 7 tolka ah moogaan waa tahay hore awadna hadalkeena waxyaabaha jiro xaqiiqada dadka xanuunka badan laakiin inaan ka gudubno aan rabno waa laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed madaxda waa muwaadiniin oo adikaaba madax ka dhigata ehelkooda iyo qaraabadooda iyo ilmahooda iyo qoysaskoodana waa muwaadiniin aniga inaan madaxweyne noqday gabadha aan dhalay iyo wiilka aan dhalay iyo kan ila dhashay iyo kan abtiga u hay kan adeerka u hay xuquuqdii muwaadin kasta u lahay ay leeyihiin ma gafayaan sina sabciin jira gabadheeda markuu dhahay dad badan ayaabay waxaan waa la soo diyaariyay qaabkaana dadka loo soo dhaxmarsiinayay waxaa la dhahaa abuuris waxa rabtid oo wadada aarabtid amarinaysid adoo ku abuuraya meel aarabtida ka soo abuuraysa intay ka soo abuurmi lahayd meel aadan rabin ya waxaan madaxda sameeyaan cid kas way sameeysaa madaxweynaha oo isku dhaqaaya waa caadi xaq u leeyahay waxba iyo ka xishoon gabadhiisa xaq u leedahay muwaadinad waay laakiin soo u abaar I love it waa ku qanacsanahay laakiin qof kale doo weydii lahaa xogaa baash waa qaab daray ahaa laakiin hadsan Ronaldinho saas kubadda doo soo garaac difaaca lugta doo taagta xataa way kasoo kulu reegay brother marka waxa soo garaacay brother ninkii lahay Xaaji Gobdoon oo da ahaan nogala dhigaayo khabiirad ahaan nogula qancinayo formalkiisa magaciisa alaabtaan madax uga soo taabta brotherkeyga no Ronaldinho soo garaaco kaaka waa kaaga kurbooda brother oo iska dhalanay mana idoo sarmis tak xashiiqo خير الله كسي مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية